arrintaas tartanka quraan akhrisku waa ay taagan tahay dhammaan waxaa la rabay in 15 bisha soon laga wada furo guud ahaan caasimadaha dowlad goboleedyada nasiib daro laakiin dowlad goboleedka galmudug qaybtii ay ku lahaayeen weli ma aysan dhicin labana soo gaarsiinin markaan wasaaradii xariiq la sameynay oo aan weydiinayna wasiir dawlaha iyo dhammaan xubnaha kale waxay si cad u sheegeen in arrintaas wasiirka wasaaradda Sheekh Nuur Maxamed Xasan ay tahay arrin asaga u gooniya runtii awna yani ka dhaga furaystay in galmudug waxa ay leedahay si toos ah gacanta loogu geliyo arrintaas markii dabcan la baarayna waxaa soo baxday arrin jeclaysi iyo ninkoosi leh oo runtii dhaqan yani runtii aan aad mamnuuc ka ah diinta islaamka iyo maaragtay matalaada dawladeed iyo cadaaladda intaba in wasiirku uu yani ku naas muujinayo shakhsiyaada oo isagu jeebkiisa ku wato iyadoo runtii ay leedahay humaagtii qabiilka iyo karakterkii musuqa marka ma la hadashan dawladdu dhexe مسؤولينتهذا ما وزيرك خاصة ما لها ضشان ما ودي سنصوت قلمذوق وصل شغل هذا أنا كوزير أهانا أيا إن بدن السعودية أنا وزير كوزير الشيخ نور لاحظ له runtii in badan oo telefoonka aan ku wada hadalnay mar walba wuxuu ii sheegay in uu diyaar u yahay in galmudug maaragtay arinteeda oo si toos ah dowlad goboleedyada sida uu xaliyo waxaan ka wada hadalnay arintii xajka qoondadii ahayd weli isagoo yani maaragtay indhaha waan xalinaa ay casfi noqotay oo aan ka warnay guddiga kala saarista sheekadaha qaadaya xujayda wax tala anagoon ku lahayn oo la ilaamiyay oo lagu dhawaaqay sidaas oo kale to arintii umrada oo bisha barakaysaneed oo taagan oo qismi ay ku leeyahay wasaaradda waqafta galmudug ayadana nama soo gaarinin markaan wasiirku weydiinana wax walba aniga xalinayo lahay haddana waxaan arkaynaa in cagsi ay tahay oo arintii si musuqa iyo gacan bidixayn wasiirku uu ku maamulayo wasiir waxa tiri dad kale oo gaar ah ayaa la rabaa tiri inay barnaamijkan ka qayb galaan ama la marsiiyo waxaad ula jeedaa xubnihii galmudug saxda ahaa ee la ogaa ee wasaaradda ka tirsanaa dad aan ahayn inay suurtagal tahay in lagu wareejiyo qaybtii galmudug wasiirka wasaaradda waqafta galmudug waqafta diinta galmudug aniga ayaana yani jaangooyada iyo maamulka yani iskale iyo haykalka iyo protocolka in maaragtay lagu ixtiraamo haba yaraatee wasiirkana waa ka weynay waxaana yani arkaynaa dad shakhsiyaada oo shacabka galmudug kamida oo waqti tala ku lahayn in wasiirku qaab yani aan u fahmnay runtii marqaati kaceedana aan aragnay inay tahay hab yani naadeersi iyo nintoosi iyo maaragtay leh calaamad yani qabyaaladeeda wasaaradda waqafta munaasab oo hayn diinta in wasiirku ku maamulayo dhammaan xubnaha kale ee wasiir dawlaha iyo agaasinka guud ee wasaaradda waxay iska bariyeen arrintaas qayb ka yihiin oo tartankii quraan akhriska ugu dambeeyay wasiirka oo diiday in dhuusamareeb la geeyo oo wasiirka wasaaradda waqafta gacanta lagu shubala way soo laabatay cabashadan ku saabsan arinta galmudug haddana waxay maraysaa in barnaamijkii diiniyan ama diinta ahaa oo quraankii kariimka ay la siyaasadeeyay maxaa u aragtaa xalka tabashada galmudug ee soo laabatay waxaan u arkaa xalku kow inuu ku jiro in la isqadariyo in loo laabto yani qiyamka suuban diinka iyo dhaqanka in matalaada iyo haykalka galmudug ay leedahay wasaaradda ay ixtiraamto si gaara wasiirka uu garaawsado in wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta uu joogaa oo ay tahay miraayadii dalka iyo dadka laga eegayay ay tahay meeshii wax isu keenayday aysan la ekayn in musuq iyo arrimo yani leh calaamad yani runtii qabyaalada ay u adeegaya iyo nintoosigu aysan qaadin awna garaawsado in galmudug iyo dhammaan yani maaragtay ii sheeg cid walba oo xaq leh lagu maamulo sida waxa ay mudan tahay ahalkana u tahay wasiirka arrimaha diinta iyo waqafta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayuu kaasi ahaa Cabdishakuur Macalin Ciise Albadri oo telefoonka toos ugu warramay isagoo ku soo galgaduud